كاه يكل مية وهبل إسدالي هبل ما مقلي شرت هبل با هبل دالي يا هبل با إسدالي ما قلت شرت هبل با إسدالي كل مية إسدالي كاه يكل مية نسكميت بانو أركانو ده هاي إسبدل كود دونا يا ما إنه كونفر كترنابا ما إنه بحنا سيدي هوا اللي بحية كل مية وبحية يا دولة دو شقين يسوق وسورك دولستها xildhibaan laakiin marka imika la arko adugu bal xukuumaddii oo kale waa adigan xildhibaankana ka ah golay wakiilada jooga raggii soo dhisayna aad ka mid tahay maxaad is leedahay maanta xukuumaddu wixii ay saxday oo dhan waad sheegtay maxaa khaldan baad is leedahay anigu waxyaabahan ku cadaynayaan kaga tagay waxa kamid ah dhaliilada waxa kamid ah waxyaabahan ku soo sheegay kulmiye ka tagay ee ahayd inuu dalkii maleeshiyaad geliyay ee ahayd inuu gobolkii sool badh ka yimi ee ahayd inuu tala qaadan waayay ee ahayd inuu dalkii khatar geliyay ninka wanaaga iyo runta diidaya wax kale wada marka maxamed xaashid ma garan karo wuxuu wado wuxuu u jeedo ma fahmi karo aduu xaqiiqdi ka hor yimi micnaheedu waxa weeye wax kala jiro wuxuu leeyahay marka malaa waxa fiicneed inuu cirro xamar la heshiiyo oo ku daro wadanka kulan habboon daawadayaal idil ahaantii meel walba naga daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaar ah oo studio-ga telefishanka caalamiga ah ee Shaahi TV kula yeelanayno xildhibaan Axmed Cabdikariin Ducaale Walhad oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland xildhibaan soo dhawow ku soo dhawow Shaahi TV aad baad u mahadsantahay aad baad u mahadsantahay waa dhawahay way xildhibaan maanta waxaan halkan ku lafa guri doonaa arrimo badan bal ugu horeyn xisbigii wadani iyo xukuumadda oo adigu dee raggii aad soo dhistay ee ku soo tabcay aad ka mid ahayd waxyaabo kala duwan baa ka imanaya xisbiyadii mucaaradka Somaliland gudoomiye Maxamed Xaashi Cabdi gudoomiyaha xisbiga ka ah wuxuu sheegay in isbedelkii weynaa ee xisbiga wadani iyo xukuumaddiisa laga filayay aanu noqon sidii la doonayay bal hadalka maxaad ka oran lahayd adigu بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم horta hadalka intaan u gelin ama aan wax ka oran waxaan jecelahay inaan si hor dhaca uga hadlo xisbiga wadada iyo xukuumaddiisa intii ay joogeen dalka iyo isbedelada ay keeneen waxaan qarsoonayn oo sida cadceedda u cad in xisbiga wadani iyo xukuumadda uu hogaaminayo madaxweynaha qaranka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ay runtii guulo aanay weligeed Somaliland gaadhin intay jirtay ay keeneen cidda iyadu qarinaysa doonaysa inay shacabka saartana waa cid been isu sheegaysa oo nafteeda been isu sheegaysa waxaan kuu sheegayaa markii xukuumaddana timi dalku jar buu ka laalaaday waa la ogyahay jar khatar buu ka laalaaday ama gebi ayuu ka laalaaday been ku sheegi maayo taa waxaad ogeyd in waddanku isu bedelay maleeshiya beeleed gobollada bari oo dhan anigu gobolka Sanaag baan ka soo jeedaa gaar ahaan degmada Ceergaabo waxaan ahaa raggii ugu horreeyay ee tegey magaalada Ceergaabo waxaanu tagnay iyada oo ay haystaan maleeshiyaad oo magaalada cid hubsidata mooyaane aan cid kaleba joogin waqtigii Muuse Bixi baad ka hadlaysaa markaa waqtiga Muuse Bixi ma isbedelkii markii dawladdu qabsatay dawladda cusub ay timi raggii ugu horreeyay booqday baan ahaa markii ay dawladdu la wareegtay halka Ceergaabo waxaanu tagnay iyadoo maleeshiyaad hubsita mooyaane aan cid kale joogin magaalada dhan Ceergaabo ee caasimadda gobolka Sanaag waxaad ka waraysaa gobolka Sool inuu maqnaa markii xukuumadda la wareegtay waxaad ka waraysaa gobolka Sool iyo Togdheerba inay maleeshiyaad hubsita oo hubaysan oo qabaa'il isu rogay ay ka jireen waxa u harsanayd inuu shiiq ka soo degaan oo berbera iyo Hargeysa intan ay maleeshiyaad isu rogto dabadna dalku uu saas daadku ku qaado ilaahay kama dhigin waxaan qabaa inuu yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland nin hoodo leh oo habeen dhalada oo ilaahay soo diray Soomaaliland haddii aanu ka soo gaarinna Soomaaliland dambe lama maqleen markii aan qiyaaso heerka ay maraysay marka atooraha ka soo gaadhay wey waa ka soo gaadhay atooraha ka soo gaadhay alxamdulillahi rabbil caalamiin waxa oo hawla ah ayay dawladdu xallisay dadkii Ceergaabo loogu horreysiiyey
anigu raggii joogay la socday dadkii magaranaysaa goftigii dowladda ee halkaa hubka ku dhigaysay ayaana ka mid ahaa qarameynta ka shaqaynayay in badan baanu fadhinay cergaabana ka soo bilownay madaxweyne ku-xigeenka hogaaminayay cergaaba laga soo bilaabay ceelafayn baa la yimi garadag baa la yimi maxay tahay cayna baa la yimi maxay tahay oog baa la yimi maxay tahay waxa la yimi qorolugud baa la yimi muddo aan sanad ka yarayn hadda sanad iyo bar bay joogtaa dowladdu muddo sanad ku dhow ayay ku qaadatay in la qaramayo dadka hubka laga dhigo waxay la wareegtay dowladdu hubkii dadkaa way iibisay maxay ahayd dadkiina way qaramaysay oo waxay ka dhigtay ciidan qaran mushaar bay qortay dad 6,000 gaaraya ciidan 6,000 gaaraya oo maleeshiya beeladii ahaa ayay tuurta u ridatay u bareedhay kaga dhabaysay in ay qaramayso ninka diidaya sacabka saaraya isagoo odhanaya lama qaban yaa ha yimaado oo ha sheego ha yidhaahdo lama qaban waxaan jirina la isma saaro taasi waxa weeye waxay ahayd qodobka koowaad ee ay dowladdu ama xukuumadda madaxweyne cabdiraxmaan uu hogaaminayaa ay ku guulaysatay alxamdulillahi rabbi alcaalamiin in lagu mahadiyo oo loo mahadnaqo bay mudan tahay ma mudna in la yidhaho xumay qaban taasi waa qodob qodobka labaad 35 sano ayay Soomaaliland jirtay 35 sano iska daa aqoonsi la keenay lama aqoon Soomaaliland hadda la bartay lama aqoon ba hadalkeedaba intuu curayay Soomaaliland la bartay miyaa ha way imika bishii ama labadii bilood ugu dambeeyay way headline-ka adduunka wararka adduunka caalamka meel kasto ay joogto Soomaaliland ma saaray ninka beeninaya hay ma daso Soomaaliland ayaa saaray Soomaaliland waxay ahayd dad meel cunaha lagu hayo oo isfuri kari waayay oo marka aad itaal dareysay cunaha lagu hayo isma furfuri kartid marka nin xoog weyn ku yimaado oo laga furfuraya waa madaxweyne cabdiraxmaan ciro wuxuu ku guuleystay inuu raggii cunahayna hayay uu inaga jaro oo inaga fujiyo oo caalamkii ina tuso oo yiraahdo Soomaaliland baa jirta oo intaas sano jirtay waan la ogeyn maanta waxaanu nahay dal la aqoonsan yahay oo maxay ahayd caalamkana laga yaqaan lana aqoonsan yahay waxa dib loo soo furfuray oo aad ogtahay oo miiska dushiisa la keenay Soomaaliland waxay ahaan jirtay xornimadeeda siday ku heshay waqtigay heshay waxa caalamku ma aqoon lama aqoon maanta waa la bartay ninka odhanaya maanta lama baran isagoo ha yimaado way cabdiraxmaan ciro ma Soomaaliland buu baray dadka bas ictiraaf uu keenay labadaba اعترافك هذه اعترافك معنيه سوا سومالي ولا برتي اعترافك معنيه سو وسومالي ولا برتي واسكو ميدو marka soo اعترافنا wuu keenay Soomaaliland wuu baray caalam hadii wanaaga lagu shaqeyn waayana oo qofku de wanaaga aanu rabinna de xumaanu buu ka shaqeeyaa qofku wanaaga diida xumaan iyo wanaag waa isku opposite haduu qofku runta ku shaqeyn waayo oo xaqiiqda ku shaqeyn waayo de wax ka xun buu ku shaqeynaya cidda ka soo horjeeda ama cidda le Soomaaliland maanta madaxweynuhu dunida ma barin اعتراف ma keenin cidda leh de waa cid wax kale ka shaqeynaysa runtii waxa weeye alxamdulillahi rabbil caalamiin in ilaahay loo mahadnaqo oo xukuumadda la mahadiyo oo la hambaliyeeyo oo loo qiro wanaaga iyo wax qabadka ay qabatay yaa waa mid muhiima way wuxuu yiri ninkii jiray waxba yaanu xeerka iyo meel xoolanaysiin xaashe nin libinka xistay xumihii waayaan war qofka waxa uu keeno dhaliisha lama diidana anigu dawladda difaaci maayo in la dhalino difaaci maayo laakiin bal waxay qabatay in la qiro oo la yiraahdo waa nimankaas waa mahadsan yihiin dawladdu waa mahadsan tahay madaxweynuhu waa mahadsan yahay intaas dadka qaarkii laga laayay way ciidan diidanay madaxweynaha waxaan ay qabatay iyo اعتراafka diidanay ku baxday waayo
waad ogtahayoo waay xisbiyada mucaaradka oo kale dee iminka ninka la yidhaahdo maxamed xaashi oo xisbiga kaah waay waatuu ka hadlaya aad degeysanaysay waay waxaanaan qabaa anigu kaah iyo kulmiye waay waa hebel isdhalay hebel ma maqli jirta hebel baa hebel dhalay ya hebel baa isdhalay ma maqli jirta waay hebel baa isdhalay kulmiyaa isdhalay kaah iyo kulmiyana isku mid baanu arkaa anigu laba xisbiyo isku mid ama hal dee xisbi ma inay isdhaleen nin iyo aabihii markuu ninku qof dhalo miyaanu isku family ahayn waay dee family baanu arkay inay yihiin ninka la yahoo maxamed xaashi maxamed xaashi dee wuxuu ka yimi kulmiyuu ka yimi aniga iga laftaydan dee kulmiyaan ahaan jirin waay laakiin waad ogeyd in 2 sano ka hor 3 sano ka hor inaan kulmiye aan saluugay dariiqu ku socdaan saluugay aan diiday waraysi adaabaa magaraysa maalintii aan iga qaaday maalintaas waay desna hadduu sidaa u suluugay oo xisbi dhistay oo xaggaa u baxay dee maya wax waay saluugu waa inuu sabab yeeshaa iminka miyaanku odhan karaa iminka somaliland waa la ictiraafay waay dee lama ictiraafin haddaan ku yidhahdo dee waa waali ya waa waalidii haddaan ku yidhahdo dowladda waxa aan kuu sheegaya tirinaya qabatay may qaban haddaan ku yidhahdo iyana waa waalidii ma garatay anigu waxyaabahan ku caddaynayaan kaga tegey waxaa ka mid a dhaliilaa waxaa ka mid a waxyaabahan kuu soo sheegay kulmiye ka tegey ee ahayd inuu dalkii maleeshiyaad geliyey ee ahayd inuu gobolkii sool badh ka yimi ee ahayd inuu tala qaadan waayey ee ahayd inuu dalkii khatar geliyey anigu caddayn baan haya waxaan kaga tegey ama waxaan ku dhaliilay ama aan kaga tegeyba waan kuu caddaynaya miiskan saaraya isagoo ha keeno hadduu maxamed xaashi waxa uu ku dhaliilayo ama wax run ahoo dee la arkayo sidaa lay arkayo anigu ma jiro nin odhan karo maleeshiyaad ma jiro oo igu dafiri karaa ma jiro nin odhan kara sool waa go'day oo laga yimi oo kulmiyaa ka yimi haadhe xilligaa ma jiro marka anigu wax cad baan hayaa ituu soo taabsi ninka hayaa ha keeno waay idinku sool miyaa soo celisay sool lama soo celin waay waxaan laga soo celin ma kuu sheegayaa waxa la yidhi ooda dhacameed siday u kala sarreeyaan baa loo kala guraa waan kuu sheegay dowladdu waxay ku habsaantay sanad iyo barkaaba ka shaqaynaysay eelkii uu kulmiye ka tegey oo ahaa maleeshiya beelaad oo ahaa maxay ahaytoy ciidamadii oo dib loo habeeyey oo ahayd maxay ahaytoy waxyaalo noocaasa oo magaalooyinkii oo dib loo dejiyey nabadayn in bal horta intii somaliland joogtay maleeshiyaad beelaadku ay ku rafteen in dadkii dib loo dowladeeyo ya waay waxbana kuma aha inay soolna keento waxba kuma aha waxa waxay ku tahay ma jirto inay xukuumadda soo celiso ha waxay ku tahay ma jirto waayo hawlahan ay qabataaba ka waaweyn sanad iyo barkaa ku qabatay ma jiro xisbi somaliland soo maray oo hawlaha ay qabatay xukuumaddani qabtay ma jiro ninka lagu jira isagoo ha keeno way maxamed xaashi waxyaabaha uu dowladda ku dhaliilay waxaa ka mid ahayd inaan isbeddelkii aanu dalka wada gaadhin isbeddelkii shacabku u codeeyeen bal ka waranyada ha isbeddelkuu doonayaa ma inaynu koonfur ku darnaabaa ma inaynu bixinaa sidii hawada loo bixiyey kulmiye u bixiyey iyo dowladdu u shaqaynayay isagu ee uu wasiirka duulista ahaa waynu hawada iminka laanahay waxaan qabaa dee wataan hore usoo sheego ninka wanaagga iyo runta diidaya wax kaluu wadaa marka maxamed xaashi dee ma garan karo wuxuu wado wuxuu u jeedo ma fahmi karo hadduu xaqiiqdii ka hor yimi micnaheedu waxa weeye dee wax kalaa jiro wuxuu leeyahy de markaa malaa waxaa fiicnayd inuu ciro dee xamar la heshiiyo oo ku daro waddanka waay adigu maxaa talo soo jeedin lahaa isaga waxaan talo soo jeedin lahaa xaqiiqda lama qariyo xaqiiqduna isma qariso waa mas-uul maxamuud xaashi wuxuu iga mudan yahay ixtiraam waa guddoomiye xisbi hase yeeshee waxyaabahan uu ka hadlayo wax dadka u cuntamaya maaha maxamuud wuxuu ahaa maamulka dowladdu ku soo maray muddo dheer buu wasiir ahaa 7 sano wasiir ahaa waddanka ka hawadii buu meel kaga warmaano hayn oo hawhaa iyo hebel baa wareejiyey wax de aniga qanciye maaha isagu wax laga inuu dad kale leeyahay dad kale wareejiyey ya isagaa wasiir ahaa wasiirka duulista hawada isagaa shirarka uga qayb gelayay anigu waan ogaa beriga shirarka isagaa ku metelayay Soomaaliland shirarka hawada isagaa ku metelayay ha ka warramo ciduu ku wareejiyey isagu ma garata misaga wareejiyey marka hawada kulley haddaanu wareejinna lug buu ku lahaa oo dowladdiisii baa wareejisay wasiir buu ahaa ama cidduu isagu farta ku fiiqayo oo hebel baa wareejiyey dee isagoo ha keeno laakiin dowladdiisii baa wareejisay isaguna ka mid buu ahaa oo dee wuuba ku mudnaayo ninkii shirar ku metelay wasiirka duulista hawada ahaa ayuu ahaa marka isagu ha ka jawaabo ha yidhaahdo cid ha u saaro
ha u saaro gacantu ha yidhaahdo war hebel baa bahasha wareejiyay anigu ma wareejin ama dowladdaydii ma wareejina si kale u wareegtay ha yidhaahdo oo ha caddayo taasaa looga baahan yahay maxamuud xaashi inuu ka shaqeeyo inuu taa dadkii magaranaysaa hore ee arrintaas iyo sidii ay u dhacday inuu dadka ka raali geliyo isagii dowladdiisii hore kulmiyaba ayaa looga baahnaa loogama baahnayn maanta dowlad shaqaynaysa oo ictiraaf keentay oo dalkii midaynaysa oo ka shaqaynaysa dalka isku duubnidiisii oo maleeshiyaad beelaadkii intaasoo kharasha ku bixinaysa inuu yidhaahdo wax may qaban wax qabadku doonayo anigu dee ma garanayo waa wax kalaa u malinaya wax qabadku si kalu walaa fikir kalu dee wax qabadka u yaqaana madaxaasha way xildhibaan laakiin marka imika la arko adu bal xukuumaddii oo kale waa adigan xildhibaankana ka ah golay wakiilada jooga raggii soo dhisayna aad ka mid tahay maxaad is leedahay maanta xukuumaddu wixii ay saxday oo dhan waad sheegtay maxaa khaldan baad is leedahay dee runtii wax khaldanoo horta xukuumaddu dee waa bini aadan madaxweyne waa bini aadan qof kasta oo dowladda xukuumadda waa bini aadan bayna aliila lama waayi karo laakiin anigu runta markaan kuu sheego iminka anigu ma arko dhaliil weyn oo lafjab ah oo aan idhaahdo war dhaliisha lafjabka ah bay dowladdu gashay ma arko laakiin dee dhaliila way jirayaan oo ma dafiraya taa inay qofku dhaliila jirayaan bini aadan nahay oo wax qof si u arko ay si kale ma garanaysaa ama xukuumadda xukuumadda la dhaliilin baad leedahay waxba laga sheegin maya waxaan leeyahay sooniga kuleba waa la dhaliili karaa laakiin dhaliilihii wax saxaa la keeno dee haddaan ku idhaahdo iminka xukuumadda waxba ma qaban soona sababayo maaha yaa soo in idhaahdo waxaasay ka habday waxaasay ka habday anigu hadda soo kuumaan tirin waxay qabatay yaa waxyaabahay qabatay baa dhaliishaba u diidaya xukuumadda in la dhaliilo qabatay dee may dhaliil eeg hadday wax walba qabato ma dhaliil bay helaysaa waxyaabahay qabatay waxqabadkay qabatee sida dharaarta u cad ayaa xukuumadda u diidaysaba dhaliil ma garatay waayo waxaan ku yidhi halkaasi kasoo bilowday maleeshiyaadkii bay qaramaysay hubkii bay ka iibisay oo dowladda lagu wareejiyey ciidankii baa la qarameeyey maxaa yeelay ictiraaf baa la doonay waa la keenay beenna maaha dee waad ogtahay adigu haddaad leedahay waa beenta hadda su-aaliga weydiiyo waxaad tiraa dee waad khaldan tahay halkaa xildhibaan waxa may keenin dee igu dhibaaday dad adigu hayso way markaan intaa kaga nimaadno arrimaha gobolkii sanaag waxbaa laga soo sheegayaa dagaal baa ka dhacay meelihii dahabka laga qodi jiray dad baa ku dhintay bal ka waran iyada maadaama xildhibaanka gobolka sanaag anigu gobolka sanaag waan ka soo jeedaa runtii aad iyo aad baan uga xumahay inay arrimaha noocaas ay gobolka sanaag ka dhacaan waana ka taxsiyeynaya dadkii ku dhintay halkaas wax walbana qadar bay horta ku dhacaan oo lama odhan karo maxay u dhaceen laakiin waa qadar caqligana ilaahay wuxuu inoo siiyey oo xayawaanka inaga duway bini aadanka uga duway oo caqliga inoo siiyey inaynu wax ku garanno ku fikirno ku shaqayno waxa xun kaga baydhno isku caawino ku noolaano xayawaanku dee adiga waa iyaguba naf baa ku jirta laakiinse dee wax alla waxay qabsan karaan ma jirto ilaahay wuxuu inoo karaameeyo bini aadanka u karaameeyey inay wixii xunna kaga baydhaan caqliga wixii wanaagsanna ku qabsadaan gobolka sanaag waxaad moodaa inuu beryahan dambe kusoo noqnoqonayaan dagaallo aad iyo aad baan uga xumahay tacsi waxaanu dirayaa dadkii eheladii ay ka dhinteen dadka shalay ku geeriyooday xaysimo waxaanaan leeyahay wax dambe yaanay ka dhicin halkaa marka runtii gobolkuna waa gobol ballaadhan oo baaxad weyn 3 meelood marka loo qaybiyo Somaliland hal meel buu ka yahay marka gobolku ballaadhnidan iyo baaxaddan uu leeyahayna yaa waxay u baahanaysaa in dee maamul adag oo gobolkii ka shaqeeya la helo marka kolley dowladduna way og tahay gobolka inuu yahay gobol ballaadhan gobol fac weyn runtii waxaan ku rajo weynahay xukuumaddu inay wixii awooddeeda iyo taalkeedaba ay ka shaqayso nabadgelyo gobolka way xildhibaan ugu dambeyn xisbigii wadani iminka dad badan baa kusoo biiraya siyaasiyiin badan oo xukuumaddii muuse xilal ka soo hayey oo xisbiga kulmiye ka soo baxay ayaa kusoo biiraya wasiir ka tirsan xukuumadda wasiirka warfaafintu wuxuu sheegay in gudoomiye xirsi uu xisbigii ka dhigay doontii nebi nuux oo cid waliba ay meel la isugu yimaado uu noqday bal ka waran iyada dee war ma jire waa sidaa uu sheegay wasiirku waa ku raacsanaho war kale oo aan sheegaya horta ma jiro waanaan soo dhaweynaynaa cid kasta oo xisbiga imanaysa xisbigana imaatinkiisu waxay muujinaysaa un
in dee hogaamin wanaagsan ay ka jirto meesha meel dee loo tegayo oo la imanayo haddaad aragto dee wanaag baa ka jira marka xisbiga iyo xukuumadduba waxa weeye waxaan qabaa inay maanta yihiin meel lagu soo hiranayo xisbiga adiga arka waa lagu soo hiranaya ya meel aan waxba ka jirin laguma hirto waa laga cararaa marka waad aragtay waa taa xisbiyadii kale dee ka iyo kulmiyaba iyo wadaniba ka iyo kulmiyaba dee cidi ku lagu hakan maayo waa laga soo yaacaya marka dee meel barwaaqiya baraare ka jirto hoggaan wanaagsan ka jiro ayaa sababtay in dee lagu soo hurto oo dadkii ay ku soo jabaan way marka maxaad is leedahay wadani xisbiyada kale ee kaah iyo kulmiyo tolo uu kaga duwan yahay dadku aad ay ugu soo hiranayaan dee waxaan ku leeyahay horta kolleyba horta haddii meel aad aragto la tegayo waxbaa ka jira waxaa ka jiraana wuxuu noqon karaa nidaam wanaagsan wuxuu noqon karaa meel la wada leeyahay oo dadka oo aan magaranaysaa dadku isku si loo arkayo marka runtii xisbiga wadani hogaamiye wanaagsan baa hogaaminaya xukuumadduna iyaduna dee hogaamiye wanaagsan baa hogaaminaya xukuumadda iyo xisbiguna waa isku midoo way isku dhisan yihiin marka mar haddii labadii hogaamiye kale hogaaminaya ay noqdeen dad dee hogaamintooda loo bogay dee waa lagu soo jabayaa oo nin walba waa imanaya marka meel aan waxba jirin dee ciina joogi mayso laakiin dad badan waxay leeyihiin malaha xisbiga waxaa looga dhowaanaya xalkii magacaabista oo rag badan oo xilligii demokrasiga doorashada inta badan waxaa la arki jiray in doorashooyinka xisbiga lagu soo biiro laakiin iminka goor horaaba la iska xaadiriyo marka waxaa la tolo xilalka madaxweynuhu magacaabaya looga dhowaanaya taadeertaa lafteedu ceebi kuma jirto hadduu dee ninku qofka biniaadanka dee xil waa dooni karaa ceeb maaha dee ceebi kuma jirto haddii xitaa xilal la doonayo waxa la wax ceeba ku jirtaa ma jirto oo ninkii hanliba xilli kastaba ha hele dee xil wuu rabaa siyaasaddana dee xil unbaa loo galaayo in dee la iska fadhiyo dee looma tago meesha qofku waxa weeye wuxuu doonaya inuu horumar sameeyo inuu xil helo inuu dalka hogaamiyo inuu ka qayb galo tartanada marka waxaasoo dhan baa keenaya inay dadkii ay hami yeeshaan oo ay arkaan halkaa ay ka arkaan inay ama xil ka heli karaan ama maxay ka heli karaan wada shaqayn wanaagsan ama ka heli karaan hogaamiye wanaagsan waxaasoo dhan baa keenaya inay magaranaysaa way aad iyo aad baad umahadsan tahay daawadayaal waxaan intaasi kusoo gabagabeynaynaa waraysi kooban oon studioga telefishinka caalamiga shaahi t v kula yeelanay xildhibaan axmed cabdikariin ducaale walhad oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somalilan oonu ka wareysanay xaaladda guud iyo arrimaha siyaasadda somalilan waraysiga anigoo axmed daahir idinla socodsiinaya waxaan idinkaga tegayaa asalaamu ullahi calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu waad mahadsantahay xildhibaan soo dhawaad